السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا عشر كان ويندوز 10 maanta waxaan ku eegaynaa sida loo bedelo default app ama se applicationka sida joogtada ah nooca fileka u fura kasoo qaad waxaan rabaa inaan furo file oo internet ah ama html ah haddii computerkayga ay ku xiran yihiin Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox mid ka mid ah unbuu ku furayaa markaas key defaultiga ah ayuu ku furayaa sida caadada ah. Windows 10 default waxay ka dhigtaa Microsoft Edge marka waad bedeli karaa oo waxaad ku bedeli karaa mar walba aad internet file furtid ama html file email ha lagugu soo diro ama file ahaan u fur inuu markaa Chrome ku furo. sidoo kale file nooca kale ah sida pdf oo kale waxaad u bedeli karaa inuu pdf reader Adobe reader inaa ku fudid u mar walba furo Foxit reader Microsoft Edge ama program kale oo aad markaas adiga rabtid mar walbaad filekaas fudid si uu kugu furo. tusaale ahaan hadda filekan html waxaa default program u ah Microsoft Edge mar walba keligiis maahana mar walba markaas oo file html ah aan furo waxaa furmay wuxuu ku furayaa Microsoft Edge. sidoo kale filekan oo pdf ah haddaan furo wuxuu ku furayaa Microsoft Edge. marka haddaan rabo inaan bedelo oo mar walba pdf file rabo aan furayo inuu igu furo Adobe reader ama Foxit reader ama program kalaba laba siyaan u bedeli karaa. waxaan fileka ayaan taaban ka right click ku samayn karaa dhanka midigta ka gujinayaa waxaan tagayaa properties meeshaan oranaysa open with Microsoft Edge ayaan oranayaa change waxaan xulanayaa markaa programka aan rabo inuu mar walba fileka noocaas aan ku furo sida kan oo kale maadaama uu pdf file yahay waxaan rabaa Adobe Acrobat reader inaan ku furo markaas waan xulanayaa programka waxaan taabanayaa okay marka haddaan furo fileka mar kale sida muuqata wuxuu ku furay markaan Adobe reader ma uusan ku furin Microsoft Edge. sidoo kale haddii aan kana sidoo kale rabo inaan u bedelo dhanka midigta ayaan ka gujinayaa waxaan tagayaa property change kasoo qaad Chrome oo kala raba inaan ku furo Google Chrome marka waan xulanayaa ama Internet Explorer oo kale laakiin Internet Explorer waxa weeye waqtigiisa uu dhamaaday oo mar dhow Microsoft way joojiyeen samayntiisa iyo updatekiisa mar dhowna waaba joojinayaan oo way ka saarayaan in computerada uu ku jiro. marka Chrome haddaan xushaan dhoo okay marka micnaheeda waxa weeye file kasta oo noocaasa kan keliya maaha laakiin file kasta oo noocaasa oo pdf ah Adobe ku furmayaa file kasta oo html file ana wuxuu ku furayaa computerkayga hadda ka bacdi Google Chrome ilaa aan ka bedelo. sidaas waa u bedeli karaa. waxaan samayn karaa oo kale default app-ka waxaan ka bedeli karaa anoo taga start gujiya settings markaan tago waxaan tagayaa apps markaan tago waxaan xulanayaa default apps markaan default apps gujiyo markaas halkan waxaan ka bedeli karaa macnaha default apps sida hadda emailka oo kale mar walba oon email file furo oo file email ahaan la igu soo diray wuxuu ku furayaa Windows Mail ayuu computer ku furayaa. haddaan gujiyo waxaa ii soo baxaya optionka ama waxyaalaha applicationada aan xulan karo marka kaas oo kale hadda waa Windows Mail waa ku habanya Google Maps oo kale markaan file oo map furo saas oo kale music oo kale file markaan furo waxaan xulan karaa applicationka markaas aan rabo inaan ku furo wixii file audio ah sida hadda kan oo aan ka bedeli karaa oo waxaan ka dhigi karaa Windows Media Player sawirradoo kale marka applicationka aan rabo nooca fileka uu yahay ayaan halkan ka xulan karaa sida hadda web browser oo kale markaan default application oo web browser aan furo
wuxuu iigu furmayaa Microsoft Edge marka waan ka bedeli karaa halkan oo waxaan ka dhigi karaa Google Chrome ama browser kale sida Internet Explorer iyo Firefox iyo wixii kale oo marka browserka nooca rabtid markaan halkan ka bedelo sida uu bedelaya oo filekii macnaha default appkii oo applicationkii markaan HTML ama link aan gujiyo oo browserku uu isfurayo browserkaas isfuraya wuxuu isku furayaa Chrome hadda maadaama markii hore uu isku furayay Microsoft Edge haddaan meeshaan buttonkan taabto oranaya reset marka sidii hore ayuunbuu isku celinayaa oo Windowska sidii caadiga ahayd iyada programmada ay ugu talagashay inay ku furmaan applicationka noocaasa ayuu ku noqonayaa waxaan kaloo xulan kala applicationka oo joogtada ama default appska anoo ku base gareynaya nooca fileka uu yahay ama extensionka fileka oo markaas haddaan halkan gujiyo waxaan xulanayaa markaas extensionka fileka ama nooca fileka uu yahay markaasaan haddana waxaan xulanayaa applicationka aan rabo inuu filekaas u isticmaalo hadda kasoo qaad html file oo kale waxaa default program u ah Chrome waan ka bedeli karaa oo waxaan ka dhigi karaa markaas browserka aan aniga rabo html oo kale sidoo kale hadda waxaa default u ah Chrome waan ka bedeli karaa markaas applicationkii aan aniga rabo waan markaas u bedeli karaa waxaan kaloo samayn karaa meeshaan hoose oranaysa choose default apps by protocol oo macnaheeda wuxuu yahay xulo applicationkaaga joogtada ah adoo isticmaalayo ku base gareynayo protocolka uu applicationkaas isticmaalayo oo hadduu http applicationka isticmaalayo waxaa ka dhigi karaa sidoo browser nooca Chrome aad ku furi karaa ama FTP oo kale hadduu isticmaalayo waxaad ku furi karaa FileZilla or program macnaha FTP marka isticmaalaya FTP protocol oo kale hadda waxba nooguma xirna maadaama uusan FTP file uusan computerka application oo FTP isticmaali kara ama furi kara uusan ku xirnayn Windows kama ayan xulan awood uma yeelan inay isticmaasho program inay hesho oo u qalma inuu furo FTP file laakiin hadda HTTP oo kale Microsoft Edge waan bedeli karaa oo mar walbaan FTTP protocol aan diro waxaan xulan karaa inuu ii furo Chrome ama HTTPS LDAP oo Active Directory Microsoft qayb ka mid ah mail mar walba email protocol aan isticmaalo waxaan macnaha applicationka ay isticmaalayo protocolkaasi waa mail marka taasna waa protocol oo groupka applicationka nooca protocolku isticmaalayo ayaan xulan karaa applicationka ii furayo markaas haddii markaa choicekooda uu badan yahay meeshaan hoose oo set default apps oranaysa marka wadkaan hore u aragnay waa halkan oo applicationka default ku ah halkan ayaad ka xulanaysaa marka halkaas ayaan ku joojinayaa casharka aan ku egnay sida loo xusho default applicationska ee Windows 10 assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh